markale muuqaalka la saaxiibayaal muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagayaa shaqo kamid ah shaqooyinka UK waana shaqada loo yaqaan delivery-ga sida loo qabto iyo sida loo sameeyo dhammaan macluumaad kasta ku saabsan shaqadan waxay kamid tahay shaqooyinka muhiimka ah dhaqaalaha UK gaar ahaan qeybta adeegyada iyo gaarsiinta cuntada intaan muuqaalka ugu gudagelin saaxiibayaal waxaan ka codsanayaa haddii aad kamid tahay asxaabta nagu cusub inaad nagu soo biirto subscribe aad saartid channelka sidoo kale muuqaalka like aad saartid haddii aad nagu cusubtay haddii hore inula joogtay waa mahadsantiin haddaan muuqaal kusoo laabto sidoo kale waxaa la arki doonaa cunooyinka masaajidada laga bixiyo oo freega ah marka masaajid baa ka afuri doonaa muuqaalkaasna waa arki doontaan intaa markii laga soo tago haddii aan kusoo laabno shaqada deliveryga markaa sameynaysa 3 nooc oo sameyn kartaa inaad baaskil ku sameysid inaad mooto ku sameysid inaad gaari ku sameysid aniga mar baan gaari ku sameeyay ayadana muuqaal baa kasoo sameyn doona insha Allah hadaa leedmo laakiinse maantay kan la wadaagayo oo marka baaskilka la isticmaalayo baaskilada la isticmaalayo laftooda waxay kala qaybsamaan laba qaybood mid elektarooniga iyo midka caadiga waxa la push bike baa dhaha kan kale electric bike baa dhaha markan hadda aan isticmaalay ujeedaan laba battery baa saaran speed ahaan aad iyo aad buu fiican yahay mootada waxba kama duwana bal mar qaarkood mootada xataa waa ka fiican yahay sababtoo ah shidaal ma isticmaalaysid meesha rabto maray kartaa halka mootadana shidaal isticmaalaysid sidoo kale meel gaari meel kale aad mari karin oo shuruucda gawaarida un baa ku soconaysa hadaa mooto isticmaalaysid baaskilada hadaa saa kaga soo tagano aan fiirino dhanka applicationada la isticmaalayo applicationada waxa ugu caansan ama ugu waaweyn 3 application kuwaas oo la kala yiraahdo Just Eat, Uber Eats iyo Deliveroo hadda arkaysaan suuqaan dhex maraya hadda waxaan isku dayay applicationada inaan furto applicationada saaxiib flexible markaa rabtana waa furan kartaa markaa rabtana waa xiran kartaa marka hadda dalabkeen oo reeyay baa helnay dalabku markuu soo dhaco waa aqbalaysaa kadibna application-ku wuxuu ku tilmaamayaa makhaayadii aad lahayd haddii makhaayada aad garanaysidna waa toos aad aadi karaa haddii kalena application-ka wuxuu ku siinayaa mapkaas aad raacaysaa makhaayadii waa soo gaarnay waana nimid markaa makhaayada aad timaadid orderku wuxuu leeyahay ama alaabta qaadaysa nambarka waxaad tusaa shaqaalaha kadibna saas orderkii lagu siinaya ama ku qaadaysaa makhaayada hadda alaabta ka qaadana waxaa la yiraahdaa Five Guys alaabta aan qaadana waa 2 order oo isku meel waxoogaa isu dhow yihiin laakiin isku jeey jiraan makhaayaddan waxay caan ku tahay xogaa makhaayadaha kale ka gedisan tahay dadku marka macaamiisha yimaadaan oo wax ka gataan waxay ka helayaan lowskan hadda si free ku qaadan kartaa ku isticmaali kartaa intii maartay aad ka cuni kartid laakiin shardi inaad tahay qof meesha wax ka gatay ugu dambeyntii alaabta makhaayada waa ka qaaday waxaana u jahaystay dhankii dadkii macaamiisha ay jireen qof macaamilka marka alaabta u geysid alaabta waxa leedahay code ama password koodkaas ku sheegaya kadibna saas qofka alaabta ku siinaysa inta kadib haddana waxa ku soo dhacay order kale noo soo dhacay waxaan ku jahaysanaa makhaayada kale aan alaabta ka qaadi lahayn alaabtan haddaan qaado maqribka taaganba alaabtan dhameystiriya kadib waxay noqonaysaa inaan maqribka aado masaajidka tago waxaan isla arki doonaa masaajidka waxa weeyaan afurka laga dhiibo ama laga bixiyo oo freega sidoo yahay sidoo muuqdo makhaayadii waa soo gaarnay waa tana iska karafaan ama ku taan rad sida u garan ogtahay waa makhaayadaha take away-ga loogu talagalay cunadan ka qaadanaa kadibna qofkii macaamilka u geynina alaabta haddaan qaadanaa kadib waxaan aadnay dhankii macaamilka waxaan soo soconaba ugu dambeyntii waa soo gaarnay iftaar Which country are you from? Oh, Egyptian. waxaan rabaa inaan la wadaago bangi online aan isticmaalo bangigan awood wuxuu leeyahay inuu sarrifo 40 lacagood oo kala gedisan haddii aad dadka safra ama qorshaha safarku ku jiro waxaan aaminsanaa 100% bangigan inuu ku anfacayo bangigana furanaysaa kaarkooda dalbanaysaa kadibna lacagta u baahantay inaad isticmaashid bangigooda ku shubaysaa saasana kaarkooda ku isticmaalsaa 40 wadan in lacagooda sarrifaan mid kamid ah haddii aad joogtid ma u baahan lacagta inaad meel kale ka sarrifatid automatically bangigana ku sarrifaya oo isticmaalsa xarunta weyn wuxuu ku taalaa UK bangigan oo bangi 100% badanaa dadka internet ka shaqeysta baa isticmaala midna hadda aniga UK baan joogaa haddii aan rabo inaan Europe aado kale ma u baahna lacag euro waxaas inaan qaato bangigan isticmaalkiisa ugu filan asaga automatically ii sarrifaya lacagtii oo wali wuxuu ku sarrifiyaa qiimaha ugu hooseeya aan hubo 100% inaad ku qanacsaan sarrifka ugu fiican suuqa buu ku siinaya haddii Europe aad joogto wadamada Scandinavian-ka qaarkood euro laga isticmaalo lacagta koronta euro laga isticmaalin waa tabto kale haddii aad u socotid East Africa gaar ahaan Kenya shilinka xataa waxa uu ku sarrifiyaa saaxiibiyaan sidoo kale haddii aad u socoto wadamada Carabta sida maartay Sacuudiga ama Imaaraat asna waa sidoo kale sidoo kale haddii aad u socoto wadamada Asia sida China kala ganacsi loo aado waa sidoo kale asaa ku sarrifaya iyo Indonesia oo badan dad dalxiisku aadaan kale marka bangiga linkiisa waxa ka helaysaa qaybta description-ka iyo qaybta comment-ga halkaas ka raaci kartaa
haddaan muuqaalkeena kusoo laabano alaabta waa geynay hadda masaajidkaan ku jahaysanay waxaa la joogaa waqtiga afurka waxaan soo socdaa masaajidka waa soo gaaray meesha weysada weeyaan waxaana mid salaadii lagu jiro hadda farahan dhaqanaya waxaan isleeyahay timir yar qaadid iyo biyo waxaan rabaa inaan waxa weeyaan bismillaysto. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الناس. ugu dambeyntii waa la tukaday hadda saa ujeedaan waxaa bilowday qaybintii afurka waxa uu soo horeeyay mooskaana naloo keenay waxay xabadaydan ka diirtay wixii kalena waa iska sii gudbiyey. saa ujeedaan afurka bariis weeyaan hilibi chicken baa ka baarayaa malaha laakiin waxaan u samaystay moosna u soo qaatay timirna u soo qaatay waxaan kaga dhigay hilib iyo ciidan baa kaga dhigtay alaabtan oo kale waxaa la dhahaa intaa haysatid hagaagso. waa mahadsantahay saaxiibayaal muuqaalkeena maanta intaas ku ogyahay waxaan kaa codsanayaa haddii halkan ay soo gaartay inaad like nagu sharaftid haddii asxaabta cusub ka mid tahay subscribe nagu saacid.